السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود الكسر وهذا channel كحساء ورك هلكن واسر علي مسلم كلاب ويكدع عيسو مناسبة دادو بلارن ولقوا ما موصيو سنة جوردي صدني شناط يكسر ورقتي حلقي لأساسي جبهة ودني حرنته ونلف هذا بوحان شعلها بلينا إذا كدوا قد بدأ كل الدواني هلكن وقلت لقلين مسؤولين تكسر قيب قشة مناسبة دا. ما شاء الله ونمك ولا ليش يبيع لمن بيتبادل ودن بريتو وهذين يا والله يقولوا صعدا ونسي صعدنا مكسوره ما شاء الله حتى واحد بدل ما قري وحكوتنا لكن هذا القلب وحكونا تانينا قرب واشقي ودينا قرية لكن قرية ولما ندين لكن قلب وحكونا تانينا أبتوجي ما لو دواعي أبتوجي ما لو دواعي ويا أبتي ما توجي نكليه وانا بدي أقول لك halkan jibbi waa socdaa qoriga ma dhigayo laakiin qalin ayaa wax ku raadsanaya halkii aan qoriga wax kaga raadin jiray qalin iyo cudud baa wax ku raadinaya iyo isku duubni iyo wadaajin baa wax ku raadsanaya هذا ما تنتهي هذا سوى بس هذا ما تنتهي وين كذا بعد اسمعنا عرق وحين يوغاني على وين يوغاني دولة هذا كلام صدقنا طبقة من كسوينا ويا لكن isku duubni farcan ahaana annaga Soomaaliya farcan ahaana keeni dhintay Allah naxariisto keeni ku dhaawacmayna aan ka warhayno waa walaalkayo kii kalena nagama tagin annaga joogna Soomaaliya هذا ما تنتهي وماسدي نبض قليك على حراسه قليل يولجري على حراسه هذا ما تنتهي هذا المتلقى وحن عرقنا من البلد أو صوماليا أو لقيت حفلة ما عرقنا سلاس أوجد والميريك لنا ملك سنة جنو على الناس كلها هذا صوماليا كان شرطة يشوش الله كسر maanta waxaan soo dhaweynaynaa xafladda sanadguurada jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya ee ka soo wareegtay 35 sanadguurada soo dhawaadaan ها كوي ميرهان دلينا انت اللي ما شاء الله نحرسته انت جبتنا كل الله كير أنا وحنا فرح فرح ما تلانا إذا سنا يجي من الموضوع شو بدنا نقول يا أخي ناس كده يستري وحنا فرح فرح ما لقى يجي حفلة الماتا وما تلاقي يقول الله ما شاء الله وحنا دوي هذا ما تدري سر وسط وشيء وده ما تدري تعال عنا ولا تعالنا اسكتوا نادو عدو بالهوس عدو بالهوس انتنا اسكتوا لي لا تنال اسكتوا من ما استكشف كل الله أكبر سندوني صدوري شنان جوح وحال الشيء قفت بني آدم عمرك وحي بريئة إني تعمل صدر ولا أفرت مركي بشرية صدر متبادلين waxaynu dabaaldegaynaa wuxuu ahaa waqtigay jooxa ugu xoog badnayd macnaatu marka waxaa mahad iskale ilaahayna soo gaadhsiiyey inaynu u dabaaldegno 35 guuradii jooxo inaynu u dabaaldegno waxaa kaloo mahad ilaahay iska leeyahay inaynu ugu dabaaldegayno goob kasta oo ka mida turaabka ilaahay abuuray oo caawa looga dabaaldegaya jooxa sanadguurahii 35 adduunka oo dhan oy ogaadeeniya kow ka tahay geed kasta oo ogaadeeniya ku yaalla iyo laa kasta oo ku taalla iyo jid kasta oo ku yaalla iyo guri kasta oo ku yaalla in jooxa looga dabaaldegaya sanadguuradeeda ilaahay baa iskale mahaddaas ثم كني عليك من نبرة الكيسية
midnimada ummadda diyaargarowga ciyaar laguma gaadhin amase meel in la fadhiistay laguma soo gaadhin meesha aynu taaganahay qof walba waxaad maskaxdaada gashataa kuwii innaga inaga midka ah dhiigoodii baynu ku soo gaadhnay marka waxaa waajib inagu ah inaynu kitaabkii aan marray ka rumayno oo ilaa aynu ogaadeen iyo calanka ka taagna aynaan kala hadhin haddaba daawadayaal si aan munaasabadan iyo dadka ka soo qayb galay sida ay ugu faraxsan yihiin si aan wax uga ogaano ayaa waxaa inoo suurta gashay inaanu qaar ka mida mikrofoonka la dhex qaadno ayaan halgan waxa ay ka mid tahay fanaaniintii ka soo qayb gashay isla markaana qayb ka ahayd ururka wadaniga xoreynta jabhadda Ogaadenya bal dareenkaaga ku aadan bismillaahir rahmaanir rahiim horta aad iyo aad baan u mahadsantihiin waan idinka mahadcelinayaa aad iyo aad baan maanta u faraxsanahay shucuurtayda maanta aad bay u kacsan tahay lama soo koobi karo waa sanad guurada kaliya intii aan aniga calshaan soo kacay iigu horeysay maanta farxad oo gudiga Ogaadenya maxay ahaydey laga xusay meel walba laga xusay inkastoo aad u jeclaan lahaa gudiga Ogaadenya inaan ku xuso haddana iimayna noqonin laakiin maanta shucuurtayda aad bay u faraxsanay lama soo koobi karo walaal waa gartay sanad guurooyinka sanadihii la soo dhaafay iyo sanadkan aanu joogno oo ay ka soo wareegtay 35 sano maxaa isbedela maxaa guulo la taaban karo والله وسند جوردي وجو الرئيسي أنت أنا سوق عي يجو الرئيسي فرحت عن السوق وبكرين جولها يوم الفجادين وحكم إذا ما أنت إن الضعفاء عالم كميلا عن لجو قبنشر لجو قبتي جودها وقاديني لجو قبتي شباب ودينك حرين وقاديني مصلحة ذينا أي محي هذا ما أنت تام تاي هل كان هل جنكيل شن يصدم سنة السوق وذي ما أنت هل كوتشوجو هذا هو فرح سنة وأنا هل كان أنا جنا فرحت عن السوق وبكرنا عن همبلية وقدر يا دمان ومدرير وقادين ملك استوي شوكتو وحن لا هاي سنة جورا وعن سنة جورا ونكسن وسنة جورا دي وجو الرئيسي محي هذا ما أنت مال والبو عالم ككميد على جو حصي أدبان وفرح سنة إنكستون شعلان له هو يدا يكتدين عن حصة عدنا يمين النقنين وحن لا سنة جورا وعن سنة كسنة كيس جولي جبني ما يعلم كأنا لا فوجدي وقادين كبيبنا aad bay u maasan tahay waxay ka mid tahay fanaaniintii xafladda ka soo qayb gashay isla markaana inuu wax ka weydiinaynay munaasabadda sanad guuradii 35aad ee ka soo wareegatay aasaaska ONLF aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta ka soo qayb galno 35 guuradii aasaaskii ONLF oo niman dhalinyaro ah oo anagoo kala aasaaseen maalintaas maxaan ku dhahay aan rajaynaynaa inay guul insha Allah ay gaari doonto xafladda marka sanad guurada sidoo kale waxa uu helinayay hambaliyada Jubbaland Jubbaland iyadana sidoo kale waan u hambalyeynaa oo laftirkeedu maxaan ku dhahay dagaal la galay aan ka waraynay kun arkaynay maxaan ku dhahay nimankii hadee Etoobiyaanka ahaana loo adeegsaday maxaan ku dhahay iyagana guushooda waan ugu hambalyeynaa waa qayb oo lafta kamid ah hadee marka iyagana hambalyaanu ku leenahay Axmed Madoobe iyo dawladdiisa iyo baarlamaanka iyo wax oo dhan xalfadda sanad guurada 35aad jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadenya ONLF oo maanta lagu qabtay magaalada Nairobi gaar ahaan xafladda Islii aan ka soo qayb galay aad baan ugu faraxsanahay sida ay u dhacday iyo habka loo maamusay iyo jawiga soo degan yahay waa farxad la soo koobi karin maalinkan maanta laba farxadood baa isku soo kaya aaday laba farxadood ayadoo doorashadii Jubbaland guul ku soo dhamaatay oo aad ugu faraxsanahay iyo xalfadii sanad guuradii 35aad ee jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadenya marka farxadanadu waa lama soo koobi karo marka koobaad waxaan salaamayaa dadweynaha Soomaali galbeed ama Ogaadenya dhammaantoodba meel ay ku nool yihiin si gaar ah salaan gooni ugu tabinaya waxaan kaloon salaamayaa ummadda Soomaaliyeed wadarteedba oo dad walaalo ah oo isku luuqad oo isku diin oo isku meel ka soo wada jeeda iyagana salaan ma artay caamayaan leeyahay waad salaamantiin dhammaantiinba waxaan uga faa'iideysanayaa fursaddan iyada ah horta waxaan leeyahay hambalyo waa xafladan waxay ka duwan tahay kuwii horay ee dhici jiray ayay ka duwan tahay waxay kaga duwan tahay in ururkan ama jabhadda xoreynta Ogaadenya ee markii la soo gaabiyay la yiraahdo ONLF inay
ay xafladaheedu maanta ka socdaan waddankii ay u dagaalamayeen gudihiisa guud ahaan magaalooyinkii waaweynaa sida Jigjiga, Qabridahar, Dhagaxbuur iyo meesha la yiraahdo Goday magaalooyinkii dhamaantood inay ka socdaan waa arrin qaali ah oo muhiim noo ah inaan ma aragtay arrintaas ay sida iyada u dhacdo farxad gooni ay noo tahay aad baan u soo dhaweynaynaa waxaan leenahay dadka Soomaali galbeed ama Ogaadeenaya ha israacaan ha guuleystaan isku meel ka soo wada jeedsadaan siyaasadooduna ha midaysnaato waxaan rajaynaynaa ururkan inuu noqdo urur siyaasadeed oo waddanka siyaasadda majaraha u qabta annaga oo shacabkiisa ahana waxaan u muujinaynaa taageero baaxad leh oo la soo koobi karin inta waxaan kaga baxayaa Soomaali galbeed ama Ogaadeenaya iyo regionkaas iyo dadka maartay inta dheer soo halgamayay intooda nolol wixii aan u soo jeedinahay waa intaas intii dhimatay waxaan leeyahay raximahumullahu rahmatan waasi'a ee dhigooda qubtay iyo maartay dadkii soo halgamay ay ugu dambeeyeen dadkii sanad ama 2 sano ka horba ku geeriyoonayay waxa si gooni ah ugu ducaynayaa oo aqoon dheer u lahaa Sheekh Deeq raxmatullaahi calayhi rahmatan waasi'a noloshana isku soo gaadhnay aan aqoon u leeyahay waxaan leeyahay Allahu naxariisto guud ahaan waan ducaynayaa intii ku geeriyootay inta haddaan kaga soo gudba dadkii geeriyooday maartay arrinta u dhintay waxaan kaga faa'iideysanayaa fursadan inaan dadka Soomaaliyeed aan u sheego inay Soomaalidu dad walaalo ah yihiin waxaan hambalyo gooni ah u dirayaa dawladda Jubbaland madaxweynaha xilka ku soo laabtay Axmed Maxamed Islaam waxaan leeyahay iyo shacabka reer Jubbaland iyo mucaaradka isaga ka soo horjeedaba waxaan leeyahay israaca oo guuleysta isagana waxaan leeyahay hambalyo xilka Allah ku asturo hal kelima ayaan dhihi lahaa dawladda Soomaaliyeed dawladda dhexe waxay u siman tahay dadka Soomaaliyeed waa dawladdu wada matalaysa dadka Soomaaliyeed shanta caalanka maartay xidigtu ku qoran tahay shanteeda gees ayay dawladda ayadii matalaysa waxa aan aad u jeclaan lahayn inay daacad ka noqoto siyaasadda iyo maartay geedu socodka dalka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed iyadoo aan aad ugu dhaliilayno inay maartay wixii dan la mooday iyo dadka qaabkii la isugu keenay ee dawlad goboleedyada iyo maartay rijinada la isugu keenay ee la lahaa dadka Soomaaliyeed ay isugu soo dhawaadaan inay iyadu burburinayso oo waliba u adeegsanaysa ciidamo shisheeye oo diyaarada loo soo kicinhayo arrinta waxaan leenahay waa arrin lagu guul daraystay madaxweyne Farmaajo maalintii la dooranayay ani gacantaydan ku qorayay waliba qol baan isku soo xidhay xafiis yar baan isku soo xidhay markii lagu dhawaaqayna waxaan dhex kacay dumarkii iyo dadkii damaashaadaya ayaan dhex kacay oo kow ka ahaa waxaan aad u rajaynayaa dadka Soomaaliyeed inuu isu soo jiidayo laakiin waxaad moodaa inuu kala fogaansho keenay waxaan leenahay madaxweynaha iyo golihiisa wasiirada iyo ra'iisul wasaaraha iyo inta maad aragtay u dhowba dadka Soomaaliyeed ha isku dayaan inay u horseedaan isu soo dhawaansho dagaalkii Soomaaliyeed inay ka badbaadiyaan ha isku dayaan dib ayna noogu celinin 1991kii wixii dhacaysan dib noogu celinin iyo inta ka dambeysay intaas ayaan kaga baxaya waxaan aad u salaamayaa bahda saxaafadda balka waran shucuurtaada ku aadan xafladda run ahaantii waan salaamaha TV-ga shucuurtayda maanta lama soo koobi karo si aan inaba caadi ma u faraxsanahay waayo waxaan u dabaaldegaynaa sanad guurada 35aad ee jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeenaya waxa kale oo loo dabaaldegayaa doorashada Jubbaland ka dhacday oo ku guuleystay mudane Maxamed Axmed Islaam marka shucuurtayda maanta lama soo koobi karo aad iyo aad baan u faraxsanahay waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed hay saraacda meel joogtaba dal iyo dibadba waan ku faraxsanahay si kaliya laaba magacaygu waa Shamsi waxaan qorne aad baan ugu faraxsanahay shucuurta ku aadan sanad guurada 35aad ee ka soo wareegtay aasaaskii halganka jamhadda wadaniga xoreynta Ogaadeenaya aad iyo aad baan ugu faraxsanahay alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahaygi guushana soo gaarsiiyay baana ma hadda iska leh ما شاء الله إذن كانوا مهتمين. السلام عليكم السلام يا أمة الإسلام كمال بوجوكتو قارهان وحن سلام يا وقاذيني هاي سرعة وقاذيني ها حرود وحنكو حجينا يا جبلان قول أحمد محمد إسلام أحمد مدوي يقول مقعيقو حويان فردوس وبشير محمد آدي يوم فرح سنة هاي ميل والبو إسلام كتوقنا والسلام هذه كانوا مهتمين ولا لا بعد ما سنتين shucuurtanada iyo farxadda maanta aan muujinayno dareenkanaga aan ku cabirayno hoolka weyn ee Sayid Cali Muslim lama soo koobi karo runtii waa maalin taariikhi ah waa 35 guuradii ka soo wareegtay maalintii la aasaasay jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeenaya aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaana shacabkanaga iyo ummadda Soomaaliyeed iyo dhammaan dadkii u soo halgamay halganka Ogaadeenaya aan u rajaynaynaa maanta ayaanteeda ama bisheeda in ay ku gaaraan baraare bashbash iyo barwaaqo iyo waliba dalkii Ogaadeenaya xora waxaana halkan ka salaamayaa jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeenaya ciidanka qalabka sida ee jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeenaya kaadirka iyo dhalinyarada OSU dhammaantood
guddiga fulinta iyo golaha dhexe iyo shacabweynaha Soomaaliyeed iyo shacabka Ogaadeenaya intaba aad iyo aad baan u salaamayaa waxaana leeyahay sanad guuro wanaagsan sanadkan sanadkiisa ilaahay Ogaadeenaya xor ah inuu kulmiyo aad iyo aad baad mahadsantihiin idinkuna waad mahadsantihiin